أبار سجالك يبارك سبحان ما يعدل يرى يهوين قدود السنة مظاهرات بلارن كسمة يفقارا ورا حروت الدولة هوسة دقمة برعو وحنا دل يرى يهوين كاسي مظاهرات أي كعبنا ينحرق هذين كي حريها loo geystay xubno ka mid ah odayaasha beesha Cabdalle Arab oo xabsiga dhigeen xubno ka tirsan xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo waliba taliyaha ciidanka bilayska Cabdullaahi Fadal Iimaan hadaba dhalinyarada iyo dumarkan mudaharaadaya ayaa waxa ay ka shiidaal qaadanayeen xariga odayaasha beesha Cabdalle Arab loo geystay kuwaasi oo dhagaxaan iyo shidi ka dhex bilaabay fagaaraha hore ee dawladda hoose ee degmada Burco waxaana isla goobtaasi markii mudaharaadkaasi bilaabmay soo gaadhay ciidamada RRU-da kuwaasi oo ku kala dareeriyay rasaas nool dadkii halkaasi ka mudaharaadayay si kastaba ha ahaatee mudaharaadkan ayaa ahaa mudaharaad yar oo kooban kaasi oo haweenka beesha Cabdalle Arab kaga cabanayeen xarig loo geystay odayaasha iyagu beesha Cabdalle Arab ee habeenkii xalay ahaa xabsiga loo taxaabay si kastaba ha ahaatee jawiga magaalada Burco ayaa hadda ah jawi degan iyagoo salaadiin cuqaal waxgarad iyo waliba qaybo kale oo ka tirsan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku soo jeedaan caasimadda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kuwaas oo ka soo kicitamay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa una soo kicitamay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer si ay u dhexdhexaadiyaan shaqaaqadani ka taagan